halkan joogaa waa magaalada muslim tuulada muslim ka tirsan degmada Luqaya. Maanta waxaan usoo fadhiistaa halkan inaan shir jiraayid ku qabto. Shirkayga jiraayid wuxuu daaran yahay laba qodob inaan ka hadlo. Qodobka koowaad safarkii wasiirka arrimaha gudaha. Qodobka labaad oo ah faragelinta madaxweyne ku-xigeenka dagaalada xeebaha. Okay, qodobka koowaad safarkii wasiirka arrimaha gudaha haddaan ku horeeyo. wasiirka arrimaha guduhu muddo dhaweyd halkan buu yimid wuxuu ka bilaabay shaqadiisa degmada Luqayaad wuxuu la kulmay odayaashii kala duwanaa ee madax dhaqameedyada ah wuxuu ku soo horeeyay madax dhaqameedkii Ciise uu kula heshiiyey inay xabad joojin sameeyaan way u saxeen tuuladii ugu horeysay xabad joojintaas saxeexday waxay usali halkan yimid waajibay goobta baaqay shaqo fiican buu qabtay wasiirkaasi naga noqday maalintii labaad wuxuu ka qabtay darbada sidaas uu sii gudbay ilaa iyo galbeed xariirad buu ka soo noqday wasiirkaasi wuxuu ka soo noqday gargaare galbeed soo maray xadka ayuu soo maray shaqo fiican buu gobolkii Awdal iyo Salilba ka soo qabtay okay الله اوكي وسيله شغله في عن قبتي شلون شاف ديغا كم جبتي واخ شديدي هاي ويجيت الا حط انا وكان سمعت ها وسيله لو خصبيا من الدقمات شيكتي ري اوضه لما هني رقميتكii awd ee degmada Luqaya dadkii waxa weeyaan raqameedkiisa qasba uu sheego been iyo intii hore isbitay ay sheegi jireen hal booliga raad in xuduudka laga soo talaabay in halkan Djibouti ciidamada laga keeno in Itoobiya ciidamada laga soo wado beentii soo afjaray waan dhakraa wasiirkaasi deetana madaxweynaha waxa lagu khasbayaa oo la leeyahay madaxweyne muxuu been u sheegay gorbaadadii reer Booramaayeen horta waan ka xunnahay wasiir shaqadiisii qabsaday oo shaqadiisii si fiican u qabsaday wixii deegaanka ka jira sheegay dadkii waarkay iyo joojin la saxday waxa weeye shaqo fiican waa markii uu fiicnayd ee wasiirka arrimaha gudaha wuxuu dhakraa shaqada ugu fiican u qabtay dhowr jeer yimday xeebaha dhowr ka jeer fashil baa ku yar dhacay laakiin markan ugu dambaysa waa markii ugu shaqo fiicnayd oo waayo aragnimo iyo khibrad ku hore uu ka helay wax badan buu wasiirkaas isku tartarsan deetana shaqo fiican buu qabsaday ilaa hadda nabadii lagu jiro laakiin dad aan nabadda shaqo ku lahayn oo haddaba la arkay waxay sameynayaan oo booramo wax ka socday hadalka social media socda la arkayo ayaaba diiday nabadii maalintii dhaweysay dagaalkii ka dhacay galbeedna iyaga bartilmaameed iyaga bilaabay reer boorama bilaabay madax dhaqameedka hadda diidan oo Suudaan dawlad horeeyana waxa markii horeba ee wasiirku xeebta maray raali kama wahayn waan ogeyn taas inta ma kaga baxaya wasiir waxaan leeyahay shaqo fiican baad qabatay hadii madaxweynuhu ma aha nin wax loo qarin karo madaxweynuhu waarkay shaqadaad qabatay cidda kale ee wax ka sheekaynaysan danahooga anagu waan ku hambalyeynaa waana ku garab taaganahay saacad wasiir intaas waa intaan qodobkayga labaad oo ah madaxweyne ku-xigeenka qaranku waxaan moodaynay inuu madaxweynaha qaranka yahay oo dalka oo dhan uu madaxweyne ku-xigeen u yahay laakiin waxa noo muuqatay imika noo soo baxaysa inuu yahay waxa weeyaan madaxweyne ku-xigeen reer wakiil oo qaranka reer wakiil ah waxay reerku diidaan uu diidayaa waxay reerku doonaana uu doonayaa madaxweyne ku-xigeen
ummadani waa ummadii ku dooratay waa ummadaad dhex maraysay waa ummadii codka ku siisay waxaan jecelahay inaad cadaalad u samayso ummadaada laakiin hadda intay dagaaladani socdeen intay hawlahani socdeen waxaa kaa muuqataa in aad reer garabka saarto reer waxa weeyaan alaabta aad hubka iyo talada iyo dhaqaalahaba aad reer siinayso hadda waxaa noo soo wararkaan helayno waxa weeye wasiirkii arrimaha gudaha ee sheegay xaqiiqadii gobol ka jirtay inaad haysato taana waanu ka xunahay waxa weeyaan madaxweyne annaga nama matashid haddaanu ciisannahay waayo adigaa bannaanka adigaa reer qura madaxweyne ku-xigeennu waxaana ii muuqata inaad berrina habar jecle matalayn ciise muuse matalayn markii aad nabadaynta aad ka wadday gobollada bariga madaxweyne qaran baa lagu haystay hubka dhigista aad samaynaysay gacmahaa lagula qabtay waa lagu garab istaagnaa reernimo iyo karti iyo dadnimo iyo aqoon aad dadka dheer tahay kumaa digini waxbaa lagula qabtay oo madax dhaqameedka halkaa joogaya cid walba way kula qabatay laakiin hadda adigu wasiirkii arrimaha gudaha oo waxa weeyaan nabadayn u socda oo deegaankii dhex maraya oo xaqiiqadii ka warramaya iyaad adiguna cirbaha ka cunaysaa waa nasiib xumo waxaan ku leenahay madaxweyne haddaad sidaad madaxweyne ku xigeen haddaad sidaad u socoto aad bedeli weydid dee waaba muuqataa warkaagu waxa weeyaan waxa ima doonta inaanad matali karin deegaanka maxaa la dhahdaa somalilan oo dhanba taasna intaaban leeyahay wixii dambe dib baan ula hari doonaa madaxweyne ku-xigeen ku saabsan wuxuuna wasiirku haddaan ku noqdo uu si fiican u caddeeyey dadka deegaanka ka dagaalamaya ee deegaanka jooga gaar ahaan meesha ciise inayna ahayn dad xuduudka dad halkaa ciise oo iska degan oo deegaankii deganoo dhulkoogii difaacanaya buu ugu yimid wasiirku markuu taa ugu yimid uu tii sheegay ayaa waxaa lagu khasbayaa oo laleeyahay dad jabuuti ka soo baxay sheeg ciidan jabuuti ka yimid sheeg ciidan etoobiya ka soo baxay sheeg dad etoobiya ka soo gudbay sheeg waan ka xunnahay waa nasiib darro taasi madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne xaqiiqada dhabtaa u soo dhaadhac deegaanka arag waxa ka jira arag madaxweyne ku-xigeenna ha noo dhegaysan bilaa calaykum madaxweyne ku-xigeenkii reer buu noqday caddaymo badan baan haynaa caddaymahaana waa soo bandhigi doonaa hadduu waxa uu faraha kala bixi waayo caddaymahaana mar dhammaan soo bandhigi doonaa hadduu ilaahay madaxweyne ummadaada xaqiiqadeeda kaale ogow waxa deegaanka ka jira kaale madaxweyne ku-xigeenna ha noo dhegaysan bilaa calaykum wasiirkii shaqada u soo diratana shaqadiisii buu fushaday ku tixigel bilaahi tawfiiq asalaamu calaykum